سامع عشقا عشقا كل خلشة كنا وأنت بين الروح xiritaankan ku yar noqdaa xiritaankan ku yar noqonaya iga raali noqo intaas waxay nagu dhamaaday guud ahaan bawr wixii dalka gudihiisa iyo dibadda baan idin soo tabinaynay waxaan jecel kuna wanta bayn rogragato bariin ku soo rido rayda wada kale karam xuska maalinta 21 Oktoobar oo laga shiray guddiga adeega bulshada ee baarlamaanka oo la kulmay xubno ka socday naafada qaranka roobabka ay qayb ka mid ah gobolkaasi Mudug maxkamadeyntii madaxweyne Uhuru Kenyatta oo dib loo dhigay ama la hakiyay madaxweyne Silaayo Axmed Maxamuud Silaayo wafdi iyo safiirka midowga Yurub oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya بلا لما لو حبه هاي ماشي ما سويت شيء انت انا واسكتكت قشير تندي هنا كامل عشان ايش تجسدوا هنا شاشته وصص مع وحاولي كاميرا سوتشيد شاشة الكاميرا سوتشيد سيان سكو أركاني بس عمل هذه شريف هو نفتك يا تنير مخاناي ما مخاناي ما جاغا ما ميركعي ما نجيهاي الله يوم رسال تاكن او سيسكويا دولة دالكا صوما كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كفي انت كل عام تدمر ذي عشق تدمر ذي سؤال ساعة وأعوذ بالله ciyaarta hawada naga daawanaysa ay kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo adduunweynaha idinka haynay habeenkan caawa oo aad ka daawanaysaan Bulsha TV maalin waxaan daawaynay xaladaadka baalka TV-ga qaranka waraxay taqsibaana lagu saliday تيم مدحوينها كعلنا مركب تيم مدحوينها فلان شاشة كعلنا شاشة 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 مدحوينها مامور قبلات كصوماليات بوتلان أيا أقبلي حل الدروشوين كأي كصعنية ولي ما في ساعتنا وحواعي خي هون كيبل عبد الرحيم محوداي وحشو جديد انتم ما ملصيو او صومالي تصو خير ارجيسا هذا ور marka liid ma dhiga karna miya hay gal jacaysh ku dhashay hargeysa hab ma keenay hay maxaa warka liidkiisii malakaana marka sakriyo kii baarlamaanka maxaa doontiisa socoto sameeysa adi atada hadarta maxaa dhaan maqleenino taban biri hal igu daro yiraahday Umar Cabdirashiid oo ka hadla baarlamaanka doodi baarlamaanka waa socotaa Cabdirashiid waa hadda haddaan la hadla baa maxaa la subaxni ma ku soo dhacay oo malabkiyo darabku baay ku dhaweeyaa mana aan ka daadeen adiguna hadeeraan solo heesa brada dii kale soo iska dhaafano iska heesa miya ku iska heesaan la yaabaan ku aan meelaan saar la wala dafan ku soo biir la ana fangar bin maahay
ها دبد بح لوgu soo horjeeday sawir gacmeedkii ayaa ka dhacay Boosaaso saraakiisha dawladda gudoomiyaha warkii baarlamaanka xoodhaa qoslay doofaarka caloosha weyn leh موسكي حق ولا عناي maxaa lagu tiraa seen dhahaa maxaa warka maxaa ku dirrabtay marka inta laga bixin halkaas la geeyaa waa la habeeha brileel soo gadaa وريتك صبح ديها بسم الله جيتك على شو قوانا وريتك صبح حفيز كما حبيناها سويا ما نقول لك بنت لا قال ابو ابو امريكا لو وصل له igboobsi meel kala ka dahsanahay inaga kalgacalkii xumaynay maynaga khaatumadooda iyo waxooga iyagu ka waramaan adeer hargeysan lagu xidhayaa tii kale arkaan oo moogtay waxa yar waa la fiirsadaa adig waxa idaafico mala maaha inoola yaqayo saaxiibo maamulka Puntland oo ka warbixiyay dagaalkii xal maamul goboleedka galmudug ayaa shaaca ka qaaday inay wax ka qabanayaan kooxaha burcadka ay caadeysta inay baartaan dadka ku safraya wadooyin fiore abu ilaa ka baqay hadi shay ismaati wax ku dhalmo wali ku asqabtay mo la ku asqabtay hal daaq ma ku mislabo balqabso waa ma ku khamsona بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن داوديال ميل والبا naga daawaneysaan ku soo dhawaada warkii caalamka waxaana warka idin soo jeedinaysa daawadayaal anigoo deeqaadin Axmed qodobada wararka daawaneysaan waxa ugu door corona بسم الله baashan ma jeedaa waxaan istaalka ana u sameeyay saamo loogu talagalay baayada qodobadaas iyo qodobo kale oo diyaar garooba gardhow marka aynu ku kala baxeeno wararkeena abu goray soo wacd laakiin afar saaci barbo iska kacayla markiisno mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee cudey Soomaaliland ayaa waxa ay ku مسؤولين كترسنا حزب معارض كعودي سوماليلاند ayaa waxa ay ku eedeeyeen dawladda Soomaaliland inay ku guuldareysatay inay wax ka qabato banaanbaxyo iyo waliba sicir birir xasan maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa ayaa maanta saxaafadda waxa uu kaga warbixiyay kulan uu la yeeshay wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale guddiga